بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إنجينير اسمان قرية iyo channelkeeni GetTube iyo coursekeeni taxanaha QuickBook inagoo maanta bilaabi doona hadii Ilaahay yiraahdo casharkeeni saddexaad ee aynu ku baranayno barnaamijka loo yaqaan QuickBook kuna eegi doona qaabka loo abuuro ama loo set up gareeyo company-gaaga si adhowto aynu u qabano transaction-ki iyo waxyaabaha kala dhacay business-ka. Markasta oo aad abuuraysid company-gaaga waxaa muhiim ah in ay ku diyaarsan tahay macluumaadka ku saabsan company-gaaga waxaad ka shaqayso company-gaaga macluumaadkiisa oo dhameystiran inaad marka hore ay ku diyaarsan yihiin oo ay ku qoran yihiin. Haddaba si aynu la soo baxno barnaamijka ama software-ka QuickBook tusaale halkan desktop-ka inoo yaala laba tir waan dhixi karnaa haddii kale waxaan tagi doonaa shaashada kadib waxaan qori doonaa QuickBook iyadoo markasta ay ku xiran tahay OS computer-ka ama operating computer-ka ku duwan nooca ay tahay. kadibna waxaan ka dalban doonaa QuickBook Enterprise barnaamijka ayaan la soo kici doonaa si aynu company-geena u set up garayno ama aynu u abuurno. daaqadan ayaan soo bixi doonta dib baynu ka arki doonaa oo iska cancel doonaa. haddaba haddii halkan aan eegno waxaa inoo yaala daaqad ay ku taalo no company open wax company ah oo furan ma jiro maadaama barnaamijka ama software-ka computer-ka aynu ku duubnay welina aynan ku samayn ama aynan ku abuurin wax company ah. halkan waxaa inoo yaala file dib ayaan ka isticmaali doonaa haddii la yiraahdo. halkan waxaa inoo yaala open iyo edit list. open means haddii halkan ku yaalaan liiska ay ku jiraan company oo dooranaysa kadibna waxaad open haddii aad rabto inaad wax ka bedeshid qaarkood aad ka saartid waxaad dooran doontaa edit list. halkan waxaa inoo yaala saddex button oo kala duwan oo ugu horeyso create a new company, open, restore existing company, open a sample file. haddaba create a new company maxaa qabata buttonka waxaa loo isticmaali doonaa markasta oo aad doonaysid inaad abuurtid company cusub oo iminka macluumaadkiisa la xareynayo oo la set up garanayo. halkan waxa weeye waxaa loo isticmaalaa marka aad rabto inaad soo furtid company hore loo abuuray oo horey loogu diyaariyay ama loogu set up gareeyay QuickBook-ga. halkan waxaa yaala open a sample file means waxa ku jira company la sameeyay oo already diyaarsan oo la taxalluqa waxa loo yaqaano business ama ganacsi kaasoo ah product ama service mid ku doonaba ahaado sample fara badan baa ku jira oo doono kartid oo eegi kartid oo ah wax diyaarsan. haddaba maadaama aynu rabno inaan abuurno company cusub oo iminka xogtii macluumaadkiisa la xareynayo waxaan dooran doonaa create a new company. daaqadan baa inoo soo bixi doonta let's get your business set up quickly. ani iminka set up garaynta ama abuuritaanka businesskaaga ama ganacsigaaga iminka bilow. halkan waxaa inoo yaala button ay ku taalo express start oo loogu talagalay for new users ani isticmaalayaasha cusub baa loogu talagalay. transactionada haddii iminka buttonkan aan doorano waxaa laga yaabaa in transactionka ama marka aanu shaqo qabanayno barnaamijka loo yaqaano QuickBook dhexdiisa in waxyaabaha qaarkood aynu ka weyno amarada qaarkood aynu ka weyno waxyaabaha si real-ka uga dhex dhacaya business-ka in company dhexdiisa aynu ka weyno. marka tan ma isticmaali doono waxaan isticmaali doonaa waxa la yiraahdo a detailed start in aynu doorano waxa loo yaqaano si faahfaahsan company-geena aynu abuurno aynu set up garayno. halkan waxaa yaala create a new company file based on existing one. waxaa doorataa maxay company cusub oo ku base garaysan mid hore jiray. halkan waxa ku yaala options kale ayaa ku yaala oo fara badan laakiin iminka waxaan dooran doonaa detail start. halkan waxaa ka bilaaban doona interview-ga lana weydiin doona ee ku saabsan company-geena iyo macluumaadkiisa. waxaa muhiim ah marka ugu horeysa company-gaaga macluumaadkiisa inaad soo diyaarsid kadibna aad ka jawaabto su'aalahan basic ah ee company-ga ku saabsan ee lagu weydiin doono. halkan waxaa lagu yiri enter your company information. halkan waxaad gelisaa maxay macluumaadka ku saabsan company-gaaga. waxaa ugu horeeya company name magaca company-gaaga tusaalahan waxaan leenahay waxa loo yaqaano General Train Company baan leenahay. halkan waxaan gelin doonaa company-geena magaciisa. waxaa kaloo jira waxa loo yaqaano legal name oo kale tusaalahan kale tax ID oo tusaalahan kale kan waxaan iska taaban doonaa tab ama dib baan u qori doonaa ama magacan caadiga company-geena uu leeyahay ayaan soo koobiyeysan doonaa. mararka qaar waxaa laga yaabaa in maadaama barnaamijkan laga leeyahay wadamadan horumaray ama wadamadan dawladaha leh
sharciga ka shaqeeyo waxa laga yaabaa in company-gaaga magaciisa iyo cashuurta magaca ku bixi sometimes sarka qaar ay kala duwan yihiin haddii uu jiro waxa la yaqaan tax ID ama cashuurta aad bixisaa ay leedahay ID halkan ay ku qori doontaa halkan waxaa gelin doontaa waxa la yaqaan street address meesha uu ku yaalo oo kala tusaale kale company-gaagu tusaale kale ayaa sheegaysaa waxa leedahay tusaale kale wadada kilometer 4 oo kale ayaad gelinaysaa agaarka ama tusaalahan oo kale waxaad gelinaysaa halka uu ku yaalo company-gaagu ama meesha laga helo halkan waxaa gelin doontaa magaalada oo kale city magaalada oo kale gelin doontaa halkan waxaa gelin doontaa furaha oo tusaale kale waxa loo yaqaano Soomaaliya oo kale 252 weeye whatever waxaad gelinaysaa furaha wadanka aad joogto halkan waxaa ka dooranaysaa wadanka aad joogtid haddii liiska ka weyn wadanka aad joogtid waxaad dooranaysaa maxay other halkan waxaa gelin doontaa telephone numberka company-gaaga lagala soo xiriiri karto waxaad ogaataa macluumaadka halkan aad geliso oo dhan in hadhowto marka tusaale macaamiisha oo kale vendors or whatever marka aad report daabacdid company dhexdiisa ka daabacdid waxa la QuickBook dhexdiisa ka daabacdid in xagga sare ee warqadda la daabacay ay ka soo bixi doonto information-ka macluumaadkan qaarkood oo halkan waxaad dooran doontaa waxa la yaqaano email address-ka company-gaaga waxaa kaloo dooran doontaa waxa la yaqaano website-ka haddii uu page leeyahay company-ga macluumaadkan oo dhan waad akhrin doontaa waadna buuxin doontaa halkan waxaa muhiim ah waxaa noo taala calaamadan casaanka asterisk means waxa weeye calaamadan cas haddii labelkan ay ka horeyso oo kale tusaale kale kuwan ku yaala sida city tax ID oo kale waa required field waa field loo baahan yahay tusaale imika company name-ka oo kale dee magaca company-gina waa loo baahan yahay calaamad casaan ayaa saaran kuwan kale laakiin ma saarna inta markaad soo buuxisid waxaad leedahay next sidoo kale progress bar-keeni wuu kordhay ilaa inta aan ka dhamayn doono u socon doona halkan waxaa la weeyay select your industry waxa aad ka ganacsato tusaale kale ama industry-gaagu waa noocma tusaale kale waxaad ka shaqeysaa waxa la yaqaan accounting or bookkeeping oo kale ka shaqeysaa company-gaagu wuxuu ka shaqeeyaa waxa loo yaqaan designing oo kale naqshadaynta oo kale ayuu ka shaqeeyaa ma wuxuu ka shaqeeyaa waxa loo yaqaan information technology oo kale iyo software xawaan cusub oo ka shaqeeya waxa uu ka shaqeeyo company-gaagu ayaa ka doonta manufacturing oo kale ma number of organization oo kale halkan waxaan ka dalban doonaa waxa la yaqaano general product based business marka waxaa jira businessyada laba qayb bay noqdaano service iyo product iminka tusaale ahaan shirkadaha leyrka bixiyo oo kale service bay bixiyaan waxbarashada oo kale institutionada bixiyo oo kale waxay bixiyaan maxay service shirkadaha dhismayaasha bixiya sameeyo dhiso oo kale tusaale kale ama iibiya ama ka ganacsada alaabta guryaha lagu dhiso oo kale iyagu waa product oo karnaa shirkadaha tusaale kale wax iibiya sida raashinka oo kale iyagana waxa loo leeyahay maxay product iibiya marka iminka general product basic business baan dooran doonaa kadibna waxaan leenahay next kadib halkan waxaa lagu yiri how is your company organized meesha waxa company-gaaga yaa iskale ma partnership laba qof yaa ka badan baale ma sole proprietorship hal qof iskale ma waxa loo yaqaano corporation ba dad fara badan baale ma non profit organizations ba yaa iskale ma cid kale iskale imka tusaale waxaan leenahay company-gan waxa iskale cid kale ayaa iskale other kadibna waxaan leenahay next marka waxaa lagu yiri select the first month of your fiscal year typically sida caadiga xisaabaadku ama company-ga caalamka sida caadiga waxay ka bilaabanta January waxa ku dhamaata December marka report-kaaga dhameystiran cost-ka bisha December oo kale tusaale kale report-kaaga isagoo dhameystiran baad QuickBook-ga ka helaysaa sida caadiga marka tusaale haddii imika January joogtid oo kale May oo joogtid oo kale waa dooran kartaa laakiin sida caadiga January dooro kadibna adhoto marka la sameeyo waxa la yaqaan xisaab xirka waxa laga bilaabi doonaa January ilaa iyo bisha 12aad kadibna waxaan leenahay next markasta waxaan indhaha ku hayn doontaa progress bar-ka interview-ga ama su'aalaha la weydiinayay halkan bay ka soconayaan marka waxa lagu yiri set up your administrator a password waxaad gelisaa adminka password-kiisa ama cidda company waxa loo yaqaano company-gan hadhowto maamuli doonta waana optional waa iska deyn kartaa waana gelin kartaa tusaale password-ka waan ka dhiganaa one more time ku celin doonaa laakiin sida caadiga adigu waxaad ka dhigataa password adag baad ka dhigan doontaa kadibna waxaan leenahay next imika wuxuu ku leeyahay create your company file company-gaagi failkiisi abuur oo save garay marka waa lagu save gareyn doonaa marka sida caadiga meel baad dhiganaysaa oo adiga ayaa folder samaysan doona tusaale imika hadaan file explorer ka tagno sida caadiga wuxuu ku dhacayaa haddii aan save na documents-ka
institute-ka waxaan sii gali doonaa QuickBooks halkan laba file ama waxaan leeyahay laba folder bayno yaala folder waxa ku yaala sample company files waa kuwa diyaarsanaa aan imika ka sheekeynay company files waxa way waa kuwa adigu aad abuurato marka sida caadiga root-ka halkaas aan isaga deyn doonaa hadii kale aad waxa samaysan doontaa folder ku gaar ah oo aad ku kaydsato hadii aad desktop ko kale iska dhigtid flash ka kala yaacanaya sida caadiga folder gaar ah ayaad mar walba ku save garanaysaa kadib waxaan leenahay next iminka waa kan barteen ayuu inoo geeyay company files keena inoo save garanaya magacii aan ugu talagalnay uu qaadanaya kadib waxaan leenahay save marka iminka muxuu sameyn doonaa wuxuu inoo abuuri doonaa company-geeni ayuu inoo abuuri doonaa oo bartii aan ugu talagalnay ayuu inoo dhigi doonaa kadib iska sugi doonaa inta uu inoo dhameynayo halkaas ayaa waxaan ka sii wadi doonaa abuuritaanka company-geena mar walba waxa muhiim ah inaad si wacan u akhriso su'aalaha lagu weydiin doono ee ku saabsan company-gaaga halkan haddaan eegno barta ku sareysa waxaa soo fulay title-kii ama magacii aan soo siinay company-geena ama company name-keeni ayaa halkan soo fulay okay iska sugi doonaa inta inoo dhamaystiri doono iyadoo markasta ay xadidayso awoodda computer-kaagu xoogay computer-kaygu yara culus yahay software badan baa ku duuban dib malaha waa iska sugi doonaa inta uu inooga dhameyn doono haddii ilaahay yiraahdo okay wali wuxuu wadaa shaqadii okay iminka ayuu dhameyn doonaa iska sugi doonaa inta marka uu inoo dhamaystiro waxaan leenahay next kadib halka waxaan lagu weydiiyay su'aal kale oo ah what you sell maxaad iibisaa service baad bixisaa oo adeeg baad bixisaa oo institution-kaagu talaan wuxuu ka ganacsadaa wax service ah tusaale ahaan waxbarashada oo kale korontada oo kale waxyaabahaas oo dhan wuxuu ka ganacsadaa a product tusaale waxaan leenahay both service and product labadaba uu ka ganacsadaa tusaale waxay ka caawin doontaa hadhowto marka aad items-ka habiye aad ka ganacsanayso diiwaan gelinayso tusaale kale in list-ka uu ku soo geliyo dabcan waan soo gelin doonaa hadii maxay aan ka weyno laakiin hadhowto waxyaabo badan ayaa ka caawin doona waxaan leenahay next halka waxa weeye recharge sales tax alaabtan tusaale waxaan aad ka ganacsanayso oo kale tusaale ka soo qaad company-gaagu alaab buu iibiyaa tusaale marka waxa laga yaabaa shay baa laga siinayaa $5 marka dawladda oo kale 0.5 ay ku leedahay cashuura 4.5 kale adiga ayaa iska leh sida caadiga maadaama dawladdu iyadoo ay maamusho waxaan oo dhan marka iminka sida caadiga yes baan leenahay kadib waxaan oran doonaa next halka waxa do you want to create estimates in QuickBooks marka badanaa waxa ku leeyahay recommended for your business waa lagu talinayaa tusaale kale waxa taxliya statement iyo estimates statement dib baan ka arki doonaa oo tusaale qofka customer-ka dhaqaaqis oo kale in la soo estimates oo kale sometimes marka qaarkood oo kale iyadoo way jirtaa oo kale tusaale kale waxyaabahan customers-ka ama macaamiisha oo kale marka aragtid inaad wax u dirto oo kale warqad loo daabaco oo kale sometimes marka qaar waad sameyn kartaa kadib waxaan leenahay next tracking a customer order in lagu order gareeyo oo lagu qabto ma u baahan tahay dalabaadka ay sameeyaan macaamiisha waxa aan u baahanahay kadib waxaan leenahay next marka video-gu dabcan uu dheeraan doonaa waxaan rajayn doonaa insha Allah inaad dulqaadan doontaan waxaan leenahay halkan using statement in QuickBooks marka ma u baahan tahay dhaqaaqa customer-ka oo tusaale kale customer-ka hadii lacag lagu leeyahay ama deyn lagu leeyahay kala tusaale kale in la eego kadibna warqadii invoice-ka loo jaro oo kale tusaale kale iyadoo faahfaahsan qaabka xogtan ama tusaale invoice-kan loo igu yeeshay oo kale tusaale kale kadibna waxaan leenahay next halka using a progress invoicing ani company-gaagu ma aqbalayaa deynta oo kale tusaale sida caadiga ah wuxuu ku leeyahay recommended for your business ani company-gaaga waxaan kula talin doonaa ama business-kaaga in macnaheedu in uusan aqbalin deynta oo badan deyntu de company-ga ay bixisaa laakiin imika waxaan leenahay yes waa ku shaqeyn doonaa maadaama business-ka sometimes mararka qaar aynu u baahanahay inaan macaamiisheena wax deeyno kadib waxaan leenahay next managing BLCO iyadana waxaan leeyahay hal u baahnaa in la manage gareeyo waxyaabaha aan soo dinto oo kale tusaale kale kadib waxaan leenahay next tracking inventory alaabtii ma u baahantay in lagu
order gareeyo oo lagu hayo ha next ma leenahay tracking time oo kale sanana kale timekii ma u baahan in lagu saxo no ama yes whatever kadibna waxaan leenahay next you have employee shaqaalayaal ma leedahay ha waan leeyahay waxaan leeyahay intaas shaqaale iyo intaas shaqaale on contract culture ama heshiis hadii ay tahay minor may baad leedahay mar walba progress info and progress barkeeni ama interviewgeeni halka uu marayo halkan ayaad kala socon doontaa kadibna waxaan leenahay next using account in QuickBooks kana waxaan iska leenahay next halkan waxay select date start tracking your finance halkeeda xisaabtaada ka bilaaban doontaa xilliga soo dooratay mise wad bedeli doontaa marka xilligii iminkaan soo dooranay kooda bisha koowaad 2019 baan ka dhigan doonaa kadibna waxaan leenahay next halkan waxaad review ku samayn doontaa waxa loo yaqaano akoonada sida kuwa dakhliga oo kale ama qarashaadka oo kale oo industry aan soo dooranay ayaa normally in naga caawin doona in waxaan oo dhan la inoo sameeyo marka kuwa badan waa ku dari kartaa kuwa badan waa ka reebi kartaa laakiin si saasan u dayn doonaa kadibna waxaan leenahay next ugu dambeyntii congratulations you have completed the easy setup interview waxaad ku guuleystay maxay in aad interviewgii aad gabagabayso mar walba halkan isha ayaad ku hayn doontaa kadibna waxaan leenahay go to a setup iminka waxaan ku guuleysanay inaynu abuurno ama set up garayno company-geeni aan soo xareyno macluumaadkiisi si aynu u qabano wax loo yaqaano real activities-ki ama shaqooyinka ama transactionadii ka dhacaya business-keena si aynu u abuurno waxaan ku guuleysanay in aynu dhamaystirno marka waxyaabahan dib ayaan ka geli doonaa waxaan leenahay start working si toos ayaan shaqada u guda geli doonaa inta aynu casharka ku xiga aynu u gudbi doono waa anigoo Engineer Ismaan Guraya iyo halkaad nagala socotaan GetLetTube inta ku kulmi doona casharka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh